golaha wakiilada Soomaaliland maalintii shalay tahayd waxay sheegeen inay dib ugu celiyeen madaxweyne Muuse Biixi mas'uuliyiin hore u soo magacaabay oo ay sheegeen in muddadii la ansixin lahaa ay dhaaftay. haddaba Maxamed Xuseen Jaamac Raambo xildhibaan ayaan jecelay bal arrintaas sida uu arko inaan wax ka weydiiyo. بدريو دستورك جمهورية سومالان waxa uu jideeyay habab iyo marino sharci oo ay ku xisaabtamaan iskuna dheeli tiraan kuna wada shaqeeyaan saddexda waaxyood ee dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah waaxda fulinta, waaxda sharci dejinta iyo waaxda garsoorka. Golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo gudanaya waajibaad dastuuri ah waxa uu shalay madaxweynaha dib ugu celiyay mas'uuliyiin tiro badan oo madaxweynuhu hore u magacaabay oo muddo dhaafay 3 bilood ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland u xadiday. madaxweynuhuna waa aqbalay. goluhu waxa uu gutay iyo gudoomiyahoodu waajibaad dastuuri ah. gudoomiyaha ayaa golaha ku wargeliyay inuu madaxweynaha ku celinayo mas'uuliyiintaas muddo dhaafay ee inta ka badan joogay 3 bilood ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland u xadiday. madaxweynuhuna waa aqbalay. gudoomiyuhu mahadsan yahay waajibaad dastuuri ayuu gutay. madaxweynuhu mahadsan yahay oo saacad gudaheed ayuu ku soo guday waajibaadkii dastuuriga ahayd oo dib ugu soo magacaabay mas'uuliyiintii uu golaha wakiilada ku celiyay. laakiin Bedriyo si taas la mid ah waxa uu dastuurku u xadiday madaxweynaha Soomaaliland muddo kooban oo dib ugu soo celin karo baarlamaanka ama aqalka golaha wakiilada xeer uu baarlamaanku hore u ansixiyay. muddadaasina waxa weeye 22 maalmood gudaheed. sidaa darteed xeerka furista ururada iyo ansixinta xisbiyadu waa dhaqangal maadaama waanu madaxweynuhu golaha ku soo celin muddadii 22 maalmood gudahood ee dastuurku u jideeyay iyadoo tirinta maalmaha laga bilaabayo maalintii uu gaaray xeerku gaaray xafiiska madaxweynaha. waa hab ay ku macaamilaan oo ay ku wada shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliland ee kala ah saddexda hay'adood aan ku soo sheegay. waxaana weeye hab macaamila oo dastuurku cadeeyay sida uu dastuurku u jideeyay in mas'uuliyiinta la magacaabo oo ansixinayo golaha wakiiladu. xildhibaanka oo hadalkiisaasi wata waxa gudoomiyaha golihiisa Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu ku eedeeyay in xeerarka uu doonayana uu u sacabatumayo kuwa kalena uu dhabarka u jeedinayo. gudoomiyaha golaha wakiiladu waxa qurux badneed oo ahayd inuu laba xeer oo isku dabeecada iyo isku shaqaa inuu jid isku mid ah u maro waayo labaduba waxay ku tacalluqaan oo ay ku aroorayaan isla xisaabtanka iyo isdheelitirka awoodeed. haddii si ay noqoto in gudoomiyuhu yiraahdo qodobka la dhacsanahay aan siyaasiyan taageersanahayna markaba waan sii deynaya oo waan hirgelinaya qodobka kalena ee aan la dhacsanayna waan la wareegaya. mudana gudoomiye labada qodob waa muddo dhaaf si aad kan shalay doole markii ugu celisay madaxweynaha inaad kana u faafiso oo aad u dhaqan geliso ayay ahayd. mana jirto waxa labada qodob kala duwan. Badri Koosar Maxamuud telefishinka Sahan Hargeysa.